السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنال كينا أفمال استوديو. فضلا هدا كو عصب تهاي سبسكراب صار جمالال كان فروسي كوسو جاران وحوال باو عصب حلقا وحان أها مدير عقلي جايان كو قنعيي لغايا بي واحد أركيسي إني أهايان وح نفس دادا ديغا آد مودسيسي لغايا بي واحد إدين سو قلين أها توك داواني تيفيغا سو إدين عبسي قليو ما أنا أهين مد دوني إنو نتيسي عبسي قليو maalin maalmaha ka mid ah aniga oo daawanaya TV-ga xilli dhexe xilligaana waxaan aad u jeclaan jiray aflaamta argagaxa leh maxaa yeelay waxaan garanayay inay matalayaan oo keli ah ee wuxuu aysan ahayn wax xaqiiqo ah waxaan galay sariirteeda si aan u seexdo waxaan arkay hooyaday oo xirayso albaabka jikada waana shay qariib ah hooyaday ayna samayn jirin hooyaday baan aaday si aan u arkay inay wax doonayso in kale hooyadayna waxay markaa aadaysay qolkeeda waxaan fiiriyay gadaal ma arkin hooyaday oo u socoto qolkeeda waan iska seexday subaxii dambe markaan soo kacay waxaan u tagay hooyaday waxaan ku yiri xalay maxaa u soo kacday habeen dhaxdii si aad u xirto jikada albaabkeeda maxaa aniga iga dalban weysay arrinta inaan sameeyo intaanan seexanin ka hor hooyaday waxay igu tiri ayadoo yaaban wiilkaygu maxaad leedahay aniga waxba maanan sameynin xalay waan naxay kelimada marka hooyaday ka maqlay waxba maanan sameynin nafsadeeda waxaan ku yiri waxaa ku qasban tahay inaa xilli hore seexatid inta aynan seexanin walaaladaa ka hor si aadan u arkin shay noocan oo kale ah mar kale waxaan bilaabay cabsi ficil ahaanna waan seexan jiray xilli hore muddo dhan waxaan ka fogaaday daawashada aflaamta argagaxa leh intaana seexanin ka hor 5 bilood ka bacdi seexashadeeda xilli hore waxaan jeclaadan u xiisay daawashada aflaamta argagaxa leh habeenkii kuwaasoo aan ku daawan jiray jikada waxaan lahaan jirnay 2 TV midna jikadu ku jiray kan kalena qolka fadhiga markaan dhamaystay daawashadiisii waxaan aaday qolka jiifka si aan u seexdo waxaan maqlay codka dhex yeeraya jikada iyo TV-ga oo kaligiis isdaaray waxaan dareemay argagax daran si kada waxaan maqlay taleefankii oo soo dhacayo waxaan akhristay mucaawidaadka waan iska seexday subaxii markaan soo kacay taleefanka aan fiiriyay si bal aan u arkay cidii xalay soo wacday maba arkin ma hal nambar xataa Allah ka dhigay meesha soo wacay waxaan dareemay argagax fara badan ka bacdi waxaan bilaabay inaan dib u seexdo xilli hore markaan gaaray da'da 18 sano waxaan go'aansaday daawashada aflaamta argagaxa leh markaan dhamaystay waxba maana arkin wax cabsiyana ma arkin wax kalena maana arag markaas baan isku iri waxaad arki jirtay waxay ahaayeen oo kaliya wax adiga aad ismoosiisay masjidka ayaan galay xaafadeena u dhawaa si aan u xifdiyo quraanka kariimka oo na barto duruus diinta ku saabsan maalin ayaan nin sheekh weydiiyay waxaana u sheegay wixii aan arki jiray wuxuu ugu yiri waxay leeyihiin hal tafsiir oo kaliya kuwa guriga idinla degan ayaa waxaa jira qaar jinni oo idinla degan kuwaas oo adiga kuwa cariirinayay adigana aad dhibi jirtay waan argagaxay markaas wuxuu ugu yiri wiilkaygu ha cabsanin akhriso aayadahan seexashana aad qolkaaga aad iska seexo waxa uma arkaysid adigana ha isku dayin inaad ku qayliso dadka guriga kula degan ficil ahaanna waan sameeyay wuxuu sheekhu ii sheegay waxna maana arkin ilaa maantadan alxamdulillaah.